wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo lagu wado inuu safar ku aado dalka Qatar kadib markii uu ka helay casuumad rasmi ah amiirka u sareeya dalka Qatar. safarkan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble uu ku sugan yahay dalka Imaaraadka Carabta oo laga maleegayo arrimo siyaasadeed oo lagu goonayo horumarka ka socda gudaha dalka. madaxweyne Farmaajo ayaana safarkan ku ambabaxaya xilli dalka ay ka socoto doorashada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. haddaba safarkan muxuu yahay maxayse uga wada hadli doonaan madaxweyne Farmaajo iyo amiirada ugu sareeya dalka Qatar oo Soomaaliya taageero xoogan siiya sidoo kalena ah saaxiibada madaxweyne Farmaajo. warkeena ayaan ku qaada dhigi doonaa dhinaca kalena khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii Roble isaga oo jooga Imaaraadka uu amar halis ah ku bixiyay in wasiirku xilka ka qaado taliyaal ka mid ah kuwa ugu sareeya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. khilaafkan ayaa imaanaya xilli Roble uu ka maqan yahay dalka isagoona doonaya in wasiirku uu sameeyo ismidaamin siyaasadeed oo ku kaco falal uu isaga ra'iisul wasaare ah ku kici waayay. arrintan ayaana imaatay kadib markii qaar ka mid ah ciidamada militariga xukuumadda Soomaaliya loo qaaday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan taasi oo golaha wasiirada ay ka soo saareen waraaqad ay ku sheegeen in ciidamadaasi ay qasab tahay in dalka dib loogu soo celiyo. Roble ayaa markii uu tagay dalka Imaaraadka Carabta waxa uu wasiirka ku amray arrimo khatar ku ah xilkiisa iyo mas'uuliyadiisa. haddaba arrimahaasi iyo qodobadaasi lagu amray maxay yihiin wararkeena ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhinaca kale Roble ayaa guuldarro weyn kala kulmay safarkiisii dalka Imaaraadka Carabta isagoona arrintu ku xumaatay kadib markii wax uusan filanayn uu kala kulmay madaxda ugu sareysa Imaaraadka Carabta iyaga oo sheegay in hadda doonayaan in siyaasiyiin cusub keenaan si madaxweyne Farmaajo xilka looga qaado balse Roble oo siyaasiyiin uu doonayay rabay inuu ka gado Imaaraadka Carabta oo lagu diiday iyadoona warqadaha iyo codsiyada uu watay wajiga looga dhaftay. sidoo kale Roble ayaa qarka u saaran inuu dib ugu soo laabto gudaha dalka maadaama madaxweyne Farmaajo uu safar ku aaday dalka Qatar sidoo kalena uu ku fashilmay safarkii uu u aaday dalka Imaaraadka Carabta isagoo ay ku soo baxeen arrimo uusan filanayn kadib markii siyaasiyiin uu doonayay in Imaaraadku ay u soo sharaxdaan si ay u adeegaan laga diiday oo ay u sheegeen inay wataan siyaasiyiin iyagoo ay ku kalsoon yihiin. Roble ayaa wado walba ka soo xirmatay markii uu dagaal xoogan la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda qaar Afrika ay tagayaan halkaasi si Roble iyo Imaaraadka loo kala dhexdhexaadiyo. haddaba waa kuwa madaxweynahaasi wararkeena ayaan si fiican ugu soo qaadan doonaa qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe dhoo furo gambalaalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu safar u aado dalka boqortooyada Qatar oo sida la sheego uu ka helay casuumad rasmi ah. kulan adag ayaa la filayaa inuu ka dhici doono magaalada Doha ee caasimadda Qatar kaasi oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dalkaasi. kulankan ayaa la sheegayaa inay soo abaabuleen ama garwadeen ka yihiin madaxda dalalka Ruushka iyo Turkiga iyo sidoo kale amiirka ugu sareeya dalka Qatar kadib markii shalay madaxweyne Farmaajo iyo madaxdaasi khadka telefoonka ku wada hadleen iyagoona laga wada hadlay arrimo badan oo la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale dib u dhiska ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa cirka iyo badda. madaxweyne Farmaajo uu dhawaanahanba doonayay in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo. kulankan ayaa sida ay sheegayaan saraakiil ka shaqeysa madaxtooyada aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo waxay u badan tahay in looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka maadaama madaxweyne Farmaajo uu halgan dheer ugu jiro sidoo mar kale uu hogaamin lahaa dalka. arrinkan ayaana ah arrinka ay doonayaan dalalka saaxiibka dhow la ah
dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan dalka Turkiga oo waqti iyo kharash badan uu ka galay ciidamada xoogga dalka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Turkigu waxa uu doonayaa inuu madaxweyne Farmaajo xukunka sii hayo maadaama ay isfahmeen, sidoo kalena madaxweyne Farmaajo ay ka go'an tahay inuu soo saaro dowlad iyo ciidamo tayo leh oo la jaanqaadi kara caalamka. Turkiga ujeedkiisa koowaad waxay tahay inuu soo dhiso dowlad islaam ah oo hadhow ka caawisa la dagaalanka dalalka kale ee reer galbeedka ah ee dagaalka xoogan kula jira Ruushku. Maadaama Soomaaliya ay ku taalla meel istiraatiiji ah, muhiim ayay u tahay inay xasilooni hesho, nabadna hesho. Sidoo kale dhaqaale ahaan Turkiga, Chinaha iyo Ruushiyaba waxay ugu jiraan tartan maadaama Soomaaliya ay ku taalla geeska Afrika, sidoo kalena ay furo u tahay ganacsiga Afrika. haddii Soomaaliya ka dhacda xasilooni iyo nabadna, ganacsigooda ay u soo mari karaan Afrikada kale ee ku hareeraysan qaaradda Afrika. haddaba kulankan oo ah mid heer sare ah ayaa lagu wadaa in asbuuca soo socdo dalka Qatar ee magaaladiisa caasimadda ah ee Dooxa. Tababarkeeda ra'iisul wasaare Roble ayaa isna ku sugan dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo sida cad kulamadaani ay si saameyn doonaan. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu dhabarka toogasho kala kulmay wasiirkiisii wasaaradda gaashaandhigga oo ay saaxiib dhow ahaayeen kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf aad u xooggan xilli safar uu ku joogo dalka Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaare Roble khilaafkan ayaa yimid kadib markii ra'iisul wasaaruhu amar ku bixiyay in xilka laga qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage oo dhawaan uu khilaaf xooggan soo kala dhexgalay asigii ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu diiday inuu amar ka qaato. amarkan ayaa sida wararku sheegayaan waxaa Roble ku riixaya Imaaraadka Carabta oo sheegaya in Odawa uu yahay awoodda kaliya ee madaxweyne Farmaajo uu haysto, isla markaana ay qasab tahay in la wiiqo si madaxweyne Farmaajo looga guuleysto. Imaaraadka ayaa kulanka ay ra'iisul wasaaraha la yeesheen waxaa ka soo baxday in ra'iisul wasaare Roble uusan gacanta ku hayn 4 taliye ciidan iyo sidoo kale xitaa saraakiil ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, balse uu mararka qaar miciin bido dad ay isku qabiil yihiin oo la baxay magaca badbaado qaran, balse uusan gacanta ku haynin hay'adaha dowladda gaar ahaan laamaha ammaanka. haddaba amarka la siiyay wasiirka ayaa ku adkaatay maadaama isagu uu yahay shakhsiga ku sugan dalka oo haddii khalalaas iyo dagaal imaado uu saameyn doono. arrinkan ayuuna ka dhaga adeegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Roble oo amarkan ku bixiyay wasiirka ayaa ka xumaaday diidmada wasiirka, waxa uuna uga guudiyay in uu xilka ka qaadi doono, balse wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa ilaa iyo hadda ku adkaysanaya inuusan samayn karin inuu xilka qaadis ku sameeyo mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa weliba taliyaha ciidanka xoogga dalka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama uusan awood u lahayn. Roble ayaa amar ku bixiyay shirka Khamiista dhacaya ee golaha wasiirada in digreeto ay soo saareen golaha wasiirada xil looga qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse lama hubo qaabkay wax u dhacayaan maadaama wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga oo ay saaxiib dhow ahaayeen uu soo kala dhexgalay khilaaf aad u xooggan isaga iyo Roble. haddaba maxay ku dambeyn doontaa ayay adiga kula tahay? commentiga inoogu reeb daawade. haddaba halkaa waxaa inooga wararkeena subaxnimo. fadlan daawade haddii ay tahay mar koowaad aad soo booqato janaalkeena Calanka TV, subscribe oo furo gambeelka si aad noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.